السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قرية سود من هالدمانتيد كان لك ديالك عصب سبسكرايب له سيدوك الفيديو اللي نصار جعل جوجتا معلم كمد أيها النبي صلى الله عليه وسلم محل ويدي ذلك يادو جعل شيء وحو جوابي عائشة كدب يا صحابة وحي كدهن رسولك الله وحن أرجينا رجع كدب وحو داي آبيد كما أوسن حشون جري جعلك وقوى حاسس كيسا بل وكفاني جري ذلك أكتودا si uu u baro dadka macnaha jacaylka mararka qaar wuxuu dhigi jiray waxa la igu arsaaqay jacaylkeeda wuxuuna ula jeeday jacaylka uu u qabo xaaskiisa Khadija radiyallahu anha jacaylka nabiga sallallahu alayhi wasallam ina barayo waa jacayl aan ku xirnayn dan ama qofka inaad wax ka heshid bal waxa dhici jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ay geeriyootay Khadija in uu badin jiray in uu sheego magaceeda una amaani jiray ilaa ay Aisha ka dhahdo kama aanan meeseerin dumar sida aan uga meeseerin Khadija sheegista badan uu sheegayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa dhici jirtay in uu markaas u diro asxaabteeda hadiyooyin daacad u yahay jacaylkeeda guri kasta oo raadinay liibaanta guurka waa in ay bartaan kuna daydaan nabiga sallallahu alayhi wasallam si ay u noqoto gurigooda guri farxad badan xilli ay ku badatay bulshadeena furiinka iyo khilaafka soo dhaxgal lamaanaha waxaad ka baranaysaa habdhaqanka nabiga sallallahu alayhi wasallam sida aad gurigaaga uga dhigi lahayd guri ku dhisan jacayl iyo wehel isgarab taagan si aad u raali gelin lahayd lamaanahaaga una dareensiin lahayd kalsooni iyo naxariis habka aad nolosha u wadaag lahaydeen iyo wadada ugu fudud ee loo xalliyo khilaafka hadii uu yimaado qaar kamid ah tusaalooyinka nabiga sallallahu alayhi wasallam ina tusinaya sida uu xaasaskiisa ula dhaqmi jiray waxa kamid ah kow wuxuu la qaadan jiray waqti gooni ah si uu la sheekayso waxay leedahay hooyadeena Aisha radiyallahu anha wuxuu ahaa rasuulka Allah hadii uu ka soo baxo salaada casr in uu gali jiray xaasaskiisa kadibna uu soo dhawaan jiray ibn Abbas wuxuu tilmaamay in uu nabiga sallallahu alayhi wasallam xilliga aroortii marka qorraxdu ay soo baxdo soo booqan jiray xaasaskiisa ibn Hajar wuxuu leeyahay booqashada aroortii waxay ahayd salaan iyo duco midda gelinka dambena weheltinimo iyo wada sheekaysi laba wuu dhukan jiray xilliga guriga uu ka soo baxayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa marka uu guriga ka soo baxayo in uu dhunkado xaasaskiisa sida Aisha ay leedahay sidoo kale hadii uu sooman yahay xitaa wuu dhukan jiray maadaama dhunkashada ay tahay waxyaabaha dareenka jacaylka kor u qaada saddex biyaha wuxuu ka cabi jiray meesha ay ka cabto Aisha radiyallahu anha waxay leedahay wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu ka cabi jiray biyaha meesha aan anigu ka cabayay ee uu afka ii saarnaa sidoo kale xadiis kale wuxuu leeyahay wuxuu ka goosan jiray hilibka meesha anigu aan ka goosto wuxuu muujin jiray jacaylka xasiskiisa uu qabo xitaa cuntada iyo cabitaanka taasina waa raadka wanaagsan ee jacaylka lamaanaha aan weligiis tirtirmayn afar wuxuu la qubaysan jiray xaasaskiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam noloshiisa dhinac kasta marka aad ka fiiriso waxa ka arkaysaa jacaylka tan ugu dhameystiran tusaale ahaan Aisha radiyallahu anha waxay leedahay waxaan ku qubaysan jirnay aniga iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam hal weel oo labadeena noo dhaxeeya markaas ayaan weelkii kaga hormarayay wuxuu idhaayay aniga waay markayga isagana marka uu iga hormaro waxaan dhahayay waa aniga markayga bal fiiri xitaa qubayska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qubays laga dareemayo kalgacaylka iyo xiriirka wanaagsan ee lamaanaha shan wuxuu u kaxayn jiray casuumaad looga waco maalmaha kamid ah ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam nin dariskiisa ah oo si fiican u sameyn jiray maraqa ayaa ugu yeeray gurigiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay Aisha ma igula jirtaa ninkii wuxuu ku dhahay maya kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri aniguna kuma jiro ilaa markii dambe uu ku yiri ha kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Aisha gurigiisa ay u soo raaceen lix wuxuu ka saamixi jiray ilinta marka ay oyso xilli ay ku guda jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xaasaskiisa safar ayaa hooyadeena Safiya radiyallahu anha ka xanuunsaday geelkeeda wuxuuna ahaa geelka ay aad u jecleed markaasna way ku safri jirtay kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimid waxana loo sheegay arintii kadib way oysay markaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gacantiisa ku masaxay ilinteeda nabiga sallallahu alayhi wasallam ma uusan xaqiri jirin dareenkeeda iyo sababta ay u oysay todoba wuxuu u ahaa xaaskiisa saaxiib iyo wehel Aisha radiyallahu anha iyada oo gudanaysa waajibaadka xajka waxa ku dhacay caado markaas ay murugootay ilaa ay ka oyso kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimid wuxuu ku dhahay caado miyaa kugu dhacday kadib ayay dhahday ha kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri isaga oo qalbigeeda dejinaya
arrinkani waa mid alle uu ku waajib yeelay dumarka bini'aadamka ee sameeyay wixii uu samayn jiray xaajiga yacni qofka xajka gudanaya waxaa ka ahayn inaad ku dawaafto kacbada bal u fiirsa nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu u yimid ma uusan weydiin maxaa kugu dhacay balse wuxuu ku dhahay caadamiya kugu dhacday wuxuu ahaa mid la socda xaaladda xaasaskiisa intaas kadib niyadeeda ayuu dejiyay murugtiina wuu ka saaray 8 wuxuu ka qayb qaadan jiray hawsha guriga Aisha radhiyallahu anha waxa la weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu ka samayn jiray gurigiisa waxay ku jawaabtay wuxuu ahaa qof u taagan shaqada reerkiisa axaadiista kale waxay tilmaameen in uu ahaan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam mid dharkiisa hagaajista kabiisa nadiifiya arigiisana caanaha ka lisa ehelkiisa danahooda u taagan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ah hogaamiyaha ummadda xilliga uu joogo gurigiisa wuxuu u taagnaa shaqada guriga xilliga uu joogo meel ka baxsan gurigiisana wuxuu ahaa mid u taagan shaqada iyo danaha dadka miyaysan mudnayn inaguna in aan ku dayano rasuulkeena si aan u helo liibaanta qoyska 9 orodka ayuu la tartami jiray wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam mid la ciyaara xaasaskiisa mararka qaarna wuxuu la gari jiray tartan orod ah sida Aisha radhiyallahu anha ay nooga sheekaysay tartan orod dhexmaray iyada iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ay leedahay waxaan ahayn aniga iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam safar waxa uu iga codsaday in aan orod ku tartanno waan tartanay waana ka guuleysay muddo kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam hadana mar kale iga codsaday in aan tartanno kadibna wuu iga guuleystay markaas buu inta u qoslay yiri tantiyo hore u qaado isagoo uu la jeeday tartankeena hadda waa bareejo 10 wuxuu ka caawin jiray in ay furaan gaadiidkooda Safiya radhiyallahu anhu ayaa waxay rabtay in ay fuusho geelkeeda markaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu jilbiisa dhulka dhigay ayay ku istaagtay oo ay fuushay awrkeedii bal qiyaas dareen sidee ah ayay hooyadeena Safiya radhiyallahu anhu dareemaysaa xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam jilbiisa dhulka dhigayo si iyada ay ugu istaagto saxaabaduna ay daawanayaan Soomaan jacayl la dul saaray jacaylkaas waa jacaylka loo baahan yahay in aan kula dhaqanno xasaskeena